cusradana waxay leedahay 4 cawdo فصل في بيان أركان الصلاة فصل هذا مثل فاصل من وحكلا سارو في بيان أركان الصلاة صلاة أركان تيدا عدين تيدا أي فصلية ما دام شروط دي صلاة أن نصوب برني هل كم حنكون برنينا أركان الصلاة صلاة waxay iska leedahay arkaan iyo shuruud iyo hay'ad iyo abcaad mararka qaarna abcaad waxa laga cabiraa sunnooyin marka waxa lagu shabahaa marka salaada la joogo qofka salaada waxa loo ekaysiyaa ama lagu shabahaa qof bini aadam oo kale salaadu waa qof insaan oo kale shuruudu waxay la mid tahay ka xayaatil insaan shuruudu salaad waxay la mid tahay qofka bini aadamka noloshiisa iyo kale nafta hadii laga siibo يعني wax nololihi ma jirto ma noolaanaysid waxa tahay meyd salaadii hadii shardi kamidana la waayana waa meyd iyaduna arkaanu salaadna waxay la mid tahay madaxii insaanka arkaantuna waa ka ra'sil insaan qofka bini aadamka madaxiisa iyo kale qofka bini aadamka hadii madaxa laga jaro nololi ma jirto arkaantan soo socota rugni kamid ah hadii la waayana salaadii iyaduna way dhimatay salaad nool ma jirto iyaduna ma ansaxayso سنن الصلاة أما أبعاد الصلاة وحي لم تهي كأعضاء الإنسان قفك بن آدم كحبنه سوكاله أي سنوين كنا أي لمده هذه حبنا ديك كاملة سيدا اللقتي لغا جرو أما قعنتي لغا جرو واتكنا ولان كرتا لكن وحبضنا كامغن وحبضنا أي كامغن صلاة هذه سنوين كيدا لغا تغو وقف قعن قوان أما اللق قوان وكاله لم تهيو واسكنا ولان كرتا وصلاة دي وأنسحي لكن أجر كيدو حقاري داوع وين هيئات الصلاة صلاة waxay iska leedahay hay'ad waxyaalo lagu qurxiyo hay'adka salaadka waxay la mid yihiin ka shucuur الإنسان insaanka tintiisa kale qofka bini aadamka hadii tinta laga xiro xoogaa noocan ma suuradiisi way isbedeli hadii hay'adka salaada laga tagana salaadii way ansixi laakiin xoogaa quruxdeedii ayaa nusqaamahay marka fasalkan waxaan ku baran doonaa arkaanta salaada arkaanu salaati salaada arkaanteedii 17 toban iyo 7 rugni ay iska leedahay salaadu arkaanta qaabka loo xisaabayo qaabka hadda sheekhu uu xisaabay waa xasilidii oo 4 boos uu sheekhu noo sheegi doono oo lagu xasilo sida rukuuci lagu xasilayo oo kale sujuudi lagu xasilayo oo kale xasilidaas wuxuu ka dhigay rugni madax bannaan ayuu ka dhigay hadii marka 4taas meelood lagu xasilayo rugni madax bannaan laga dhigo waa sida sheekhu uu xisaabay oo waxay noqon arkaanu salaad 17 ay markaa noqon qaarkoodna waxay ka dhigaan 18 sida kitaabka matniga Abu Shujaaca oo kale oo matniga Abu Shujaaca oo kale wuxuu leeyahay arkaanu salaad waa 18 isagu wuxuu ku soo daray marka niyatul khuruuj min as-salaah oo salaada markaad ka salaamo naqsanaysid inaad niyeysato salaada inaad ka baxayso waa laga maarmaan u leeyahay laakiin sida raajixa taasi rugni ma aha shardina ma aha rugnina ma waa iska sunno qaarna sidaas oo kale waxay ku ziyaadiyeen khushuuc sida Imam al-Ghazali oo kale rahimahullahu ta'ala isagu wuxuu ku daray khushuuc oo wuxuu yiri salaada in lagu khushuuco iyaduna waa rugni min arkaan as-salaah oo qofkii khushuuci waayo qalbigiisu xaadir noqon waayo oo qalbigiisu meel kale dukaankii iyo xafiiskiisii iyo suuqii iyo gurigiisii iyo qalbigiisu uu ku maqan yahay salaadii wuxuu leeyahay Imam al-Ghazali kama ansaxayso oo wuxuu jabiyay rugni kamida arkaanu salaah oo khushuuci wuxuu ka dhigay rugni min arkaani salaad Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala laakiin sida raajixa khushuucu waa sunno kamid maaha arkaanu salaah arkaanu salaati salaada arkaankeedii 17 17 way al-awwal rugniga ugu horeeya an-niyatu rugniga ugu horeeya waa niyo ay bil qalbi qalbiga in laga niyeysto falaa yajibu nutqu biha bil lisaan carabka in niyada looga dhawaaqo waajib ma aha oo qofku yiraaho salli farda dhuhri oo kale inuu yiraaho waajib ma aha laakiin yusannu laakiin wala sunneeyaa li yucaawina al-lisaanu al-qalba si carabku uu kaalmeeyo uu saacido qalbiga wala cibrata bi nutqi al-lisaan carabka dhawaqiisu wax qiimo ma lahan bikhilaafi ma fi al-qalbi wixii qalbiga ku jiray wax khilaafsan hadduu carabku ku dhawaaqo waxaan fiirinaynaa qalbiga waxa ku jira ee carabka dhawaqiisu markaa qiimo yeelan maayo kaanna wadhuhra biqalbihi
tusaalahaan qalbiga wuxuu ka niyeystay inuu salaad duhura tukado wa sabaqahu lisaanuhu ilaa gayri carabkiina markaas wuxuu ka xaday usallii farda alcasri uu carabka ka yidhi qalbigana muxuu ku haystaa duhur inuu tukanayo xaggee la ictibaarinaa oo la fiirinaa qalbigaa la fiiri marka qalbiga iyo carabku haddii ay iskhilaafaan waxaa la fiirinaa mar walbaba waxa qalbiga ku jira anniyatu niyow wayajibu waxaa waajib uu ku yidhi sheekha qarnu niyati bitakbiirati alixraam niyada in lala xidhiiriyo takbiiratu ixraamka oo markaad xidhanaysid salaadda allahu akbar markaad leedahay markaasaa la rabaa niyada inaad la timaadid oo takbiirta lala xidhiiriyo liannaha takbiiratu alixraam awalu waajibaati salaad waajibaadka salaadda waxaa ugu horeeya allahu akbar allahu akbar markaaad leedahay ayaad niyada la imaan inaad la xidhiiriso takbiirtaasna waa laga maarmaan laakiin xidhiirkaas waxaa laysaga kaaftoomi sida imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo imaamulxaramayn iyo ghazaali iyo culimo fara badan ay rajaxeen waxaa laysaga kaaftoomi almuqaarana alcurfiya iyo walistixdaaru alcurfi ayaa laysaga kaaftoomi istixdaarka curfiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye inaad tukanaysid qalbiga waxaad soo gashane inaad tukanaysid iyo nooca aad tukanaysid duhur miya casr miya maqrib miya cisho miya iyo salaadda aad tukanayso inay waajibta saddexdaas adigoo qalbiga ku haysta ayaad allahu akbar leedahay oo takbiirta aad la xidhiirin waa inaad tukanaysid salaadda nooca ay tahay iyo salaadda aad tukanayso inay waajib tahay uusan sunno ahayn saddexdaa adigoo qalbiga ku hayaad waxaad leedahay allahu akbar laakiin in tafaasiilta rugni qalbiga loogu qabto oo niyadii ay ka mid tahay oo rukuucii la niyeysto gooni qalbiga loogu soo xaadiriyo oo ictidaalkii gooni qalbiga loogu soo xaadiriyo oo dhammaantood arkaanta allahu akbarta lala wada xidhiiriyo taas waxay ka baxsan tahay awoodda bini aadamka waa naadir qof keeni kara kaas oo kale lidaalika marka waxay rajaxayaan imaamu alghazaali iyo imaamu nawowi raximah اllahu tacala imaamu alxaramayn waxaa loo yaqaano alistixdaaru alcurfi wاlmuqaarana alcurfiya kitaabka sharaxna wuu kuu suurayna wuxuu ku leeyahay wاlاstixdaaru alcurfiyu istixdaarka curfiga ah an yastaxdira hay-ata salaati ijmaalan qofku salaaduu tukanayo qaabkeeda waa inuu qalbiga ku qabsado oo uu soo xaadirsado bian yaqsida ficlahaa salaadda horta inuu ficil salaada inuu tukanayo waa inuu niyeysto wa yucayinahaa min duhrin aw casrin salaadda magaceedana uu sheego duhur inay tahay inay casr tahay waa inuu niyeysto inay duhur tahay inay casr tahay inay maqrib tahay waa inuu niyeysto wa yanwiya alfardiya salaadduu tukanayo inay waajib tahana inuu niyeysto bis intaasuu allahu akbar leeyahay marka takbiirta uu la xidhiirin wاlmuqaarana alcurfiya an yaqrina hada almustaxdaru ijmaalan saddexdan shay uu yani soo xaadirsaday waa inuu la xidhiiriyo biayi juzءin min ajzaءi takbiira takbiirta xuruufta ay ka kooban tahay xaraf ka mida waa inuu saddexdaas uu la xidhiiriyo allahu hamzada markaad allahu akbar ku dhawaaqaysid xataa hamzada haddii saddexdaas markaad hamzada ku dhawaaqayso ay qalbigaaga ku jiraan bis salaadda way ku ansixi واختار النووي في المجموع وغيره ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنها تكفي المقارنة العرفية habkan aan soo sheegnay in loo niyeysto ayaa isaga filan uu yiri uu rajaxay Imam Nawawi culimadaas kale ayil ijmaaliya bacda al-istixdaar al-urfi bian la yaqsida inuusan waxba niyeysan الركوع بذاته والقراءة بذاتها وهكذا ركن inuu niyeysto waxba shardi ma aha لأن المقارنة الحقيقية تعجز عنها القدرة البشرية غالبا muqaaranada oo xaqiiqiga ah istixdaarka xaqiiqiga ah awoodda bini aadamka oo ma samayn kartaba sida qaalibka ah الثاني rukniga labaad takbiiratu اlixraam takbiiratu اlixraam takbiirtii xirashada takbiirta xirashada waa rukniga labaad takbiiratu اlixraam waa min idaafati الsabab lilmusabab sababkii ya musababkii loo adiifiyey ixraam yani asalkiisu wuxuu ahaa bimacna alxurma laga keenay xaaraam yeelid takbiiraة الإxraam xaaraam yeelidda takbiirteedii leanno markaad allahu akbar tiraaho wax ka hor intaadan allahu akbar dhihin xalaal kuu ahaan jiray ayaa hadda xaaraam kaa noqonaya salaadda markaad xidhato oo uu ka mid yahay hadalkii uu ka mid yahay dhaqdhaqaaqii uu ka mid yahay waxyaalo badan inaad cunto ay ka mid tahay inaad cabitaan samayso ay ka mid waxyaalo xalaal kuu ahaan jiraya markaad allahu akbar tiraaho xaaraam kaa noqonayo marka ixraamka waxaa laga keenay asal ahaan min alxurma takbiiraة الإxraam takbiirtii xarimidda oo waxyaalo badan kaa xarimaysay oo markaad allahu akbar tiraaho waxyaalo badan oo xalaal ku ahaa jiray ayaa xaaraam kaa noqonaya
الثالث ركن سدحاد القيام استاغ على القادر قفكي أودي دشي ساهادي في الفرض واجب كدحدي سنة لو استاغو ركن سدحاد صلاة مربى هذه واجب تهي وإن لو استاغو وواجب مربى هذه صلاة وإتاي صلاة فرضة صلاةها السنة فرد ولا سجدت كنكرا أما صلاةها واجب كاشن صلاة واجب كواجب نقنايا إن لا استاغو لا مرمان وهو استاغو نصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله وإن لفها دبرك وتاغو ويسق ماتية لفها دبرك وإن وتاغو وإن أدرغ رأسه مدحيسه هبر رارعيه هدو دونه ومدح هدو رارعيه taas waa la rabaa madaxa inuu raariciyo meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyo waa la rabaa bal huwa mandub waa la sunneeyo madaxa inuu raariciyo laakiin lafaha dhabarka waa inay si qumaatiya ay u taagan yihiin marka cala alqaadir la yiri maxaa baxay hadduusan awoodin oo salaadii uusan istaag ku tukan karin markaas waa iska fariisan hadduu fadhi awoodi waayana jiif ayuu isaga tukan وسيدي حديث البخاري غيرك ورنيين النبي وكشاغي صلى الله عليه وسلم والأصل في وجوب القيام قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وكانت به بواسير صحابي عمران بن حسين وحو قبي عذر كبواسير اللي راهو صحابي قاسو حنونسا ونبي كويري صلى الله عليه وسلم صل قائما هذا تاغنتكو فإن لم تستطيع هدادا أود فقاعدا هذا فضيتكو فإن لم تستطيع هدادا أود فضينات كتكتو فعلى جنب هذا دنا سجيفة تكوك يرى رسولك صلى الله عليه وسلم روى هذه الأحوال الثلاثة البخاري أيها البخاري رحمه الله تعالى أيوري زاد النسائي الحالة الرابعة نسائي حسنا كيسكوزي هذه حالة أفرادهية فإن لم تستطيع هدادا أود دنا إذا جيفته فمستلقيا هذا دبر يقرقر جيف دبر سجيف هذا حتى دنا جيفا ويسو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها naf ilaahay ma kallifo ilaa awooddeeda iyo tabarteeda mooyee waxba kuma kallifo marka qofku hadduu awoodi waayo istaaggii heerarkaas intuu awoodo ayuu salaadii ku tukan walidaalika nidaamkaas in la xaq dhowro oo la ilaaliyo marna salaadii aan laga tegin ayaa waajib noqonayo xanuun yimid awgeed aan looga teginin ayaa waajib maxaa yeelay qofku markuu xanuunsado markaasaaba la doonay inuu salaada iyo cibaadada sii xafido uu sii dadaalo maxaa yeelay waxaa dhici karta xanuunkan inuusan ka kicin oo ku dhinto inuu aad u sii sahay qaato oo uu toobad keeno oo isdiyaariyo cibaadada uu badiyo inta awoodiisa markaasaaba la doonay dadka qaarkood waxay caado yeesheen markay xanuunsadaan inay salaadaba ay ka tagaan waa khatar waa khaatimo xumo maxaa yeelay ilaahina subxaanahu wa tacaala ma kallifin ilaa awooddaadu ilaahay kugu kallifay waxaad awooddo unbaa shareecadu kugu kalliftayo haddii aad xataa fadhi ku tukan weysay iska jiifaa lagu yidhi jiifkii xataa haddaad ku tukan weysay oo yacni sujuuddii iyo aad madaxa ka ishaari weysay fartaasaad xataa ka ishaari fartaasaad sujuuddii iyo aad ka ishaari haddii madaxii xataa aad nuuxin weysay haddii xataa fartii aad ishaari weysay oo meel xibin ka mida xibnahaagii aad dhaqaajin weysay xataa qalbigaa la rabaa salaadii inaad ka dureeriso qalbiga inaad ka tukato yacni inta qalbiguba uu joogo oo caqligaaguba uu shaqaynayo salaaddu waxay kugu tahay waajib sida aad u tukan karto awooddaada ay tahay ayaana ilaahay waajib kaaga dhigay ee awooddaada wax ka baxsan ilaahay kuguma kallifin raxmaddiisa iyo fadligiisa marka rugnigan saddexaad ee alqiyaam cala alqaadir ah qofkii yacni awooday inuu istaag ku tukada ah xilliyadan waxaa soo batay maadaama cudurradu ay bateen waxaa yimid dad kuraas ku tukanaya oo tusaale ahaan qalliin looga sameeyey jilbaha qalliin looga sameeyey oo kursi ku tukanaya qofkaas mar walbaba haddii ninka dhakhtarka ah qalliinka isaga ku sameeyey hadduu wasaayaad soo siiyey oo dardaaramo uu soo siiyey oo uu sheegay in dhulka haddii uu fadhiisto ama jilibka uu dhulka uu dhigo in caafimaadkiisii uu khatar ku yahay ama wax ay si isdhaafi karaan birihii meesha la geliyey ama balaastigii meesha la geliyey isdhaaf iyo khalad uu ku iman karo dardaarankaas inuu fuliyo waa waajib caafimaadkiisana uu ilaaliyo ninka dhakhtarka dardaarankiisa waa ilaalin laakiin khaladaadka mararka qaar dadkaas ay sameeyaan maxay tahay kursigaas horta markuu ku tukanayo wuxuu samaynayaan iyagoo istaagi kara oo xaafadahoodii iyo meel walba socod ku maraya oo soconaya ay kursi ku fadhiisanayaan xataa faatixadii oo in istaag lagu akhriyo ay waajib ahayd ma istaagayaan hadhow salaadda markii assalaamu calaykum la yidhaahna waxaad arki kobihiisa u qaadana waa socona
waxay maqleen uun war qofkii maaragtaa dhakhtarkii markuu yidhi dhulka iska ilaali markuu yidhi waxay markeen uun dad uun kursi isaga tukanaya sidii isaga raaceen waa iska hayin raaco kursigaa lagu tukan sidii isaga tukadeen marka fadhigii ku xihan salaaddii allahu akbar uu leeyahy rukuucii iyo sujuuddii waa ishaare hadhow markii assalaamu calaykum la yidhahna kobihiisa u qaadanoo dadkuu dhinaciisa ka raacay waa iska socona taasoo kale waa khalad salaadaasina ma ansaxayso qofka la yidhi jilbahaaga ka ilaali dhulka ha dhigin nidaamku u tukanayo habku u tukanayo maxay tahay horta takbiirta allahu akbar markaad xihanayso istaag ku xiro waa waajib ilaa waad soconaya waa lagu jeedaa inaad soconaysee istaag ku xiro allahu akbar dheh faatixadana istaag ku akhri waad rukuuci kartaa haddaad rukuuci karto haddana rukuucii si caadiya u rukuuc ictidaalkii samic allahu haddana maadaama aad istaagi kartid ictidaalkiina istaagii lagu akrinaayo samic allahu haddana waa waajib inaad istaag ku akhriso ood istaagto waa waajib ictidaalkii samee qirada akhrinta samic allahu waa sunno laakiin mar walbaba istaaggaas ictidaalkaasaa waajiba oo rugni min arkaani salaad ka mida waxaa la gaaray xilligii sujuuddii markaas way markaad fadhiisanayso maadaama dhakhtarku uu ku yidhi jilbaha dhulka ka ilaali markaa kursigaaga ku fadhiiso waa sujuuddii waad ka soo kacday rabbi kfir lii ayaa la mariyo dee mar walbaba fadhigaa lagu akhrinayo ducadaas kursigaagii haddana ku fadhiiso sujuuddiyaa la gaaray sujuuddi haddana ishaar haddana istaag marka wixiiba istaag ah oo istaagba in lagu aqriyo ay waajib tahay waa inaad arkaantii istaagga aada samayso wixii dhakhtarku markuu ku yidhi dhulka iska ilaali waa un sujuuddii uun waxaad ishaaraysa bis wixii haddee fadhi lagu akrinayaba haddee ewelaaba ilaahay subxaanahu watacaala uu mashruuc ka dhigay fadhi in lagu sameeyo sida ataxiyaadkii iyo rabbi kfir lii iyo kuwaasna kursigaagaad ku fadhiisan الثالث القيام على القادر في الفرض الرابع ركن أفراد قراءة الفاتحة فاتحة أقرن تيديو فاتحة إن لا أقريه وركن من أركان الصلاة أي حفظا فاتحة قفك إنه حفظ سنيهي أو تلقينا أما ميرين إن لو ميريو حتى أدوسا حفظ سنين إن لو ميريو صلاة أسوه فجرة أو نظرا في المصحف أما إنه مصحف ككفير صلاة مصحف كأخرسته نوع الدونة بهو أخرين على الرباء فاتحة أنا أخرسه baa lagaa rabaa nooca doonto u akhri ama xifdi sanaaw ha lagu meeriyo musxafka ka fiiri oo naxwa dalik walow biwaasidati siraajin liman fii dulmatin qofkii xataa mugdiga ku jiray xataa iftiin iyo waxashito iftiinkaa markaa musxafka faatixadii ha ka akhristo hadduu doono watajibu fii kulli ragcatin ragco kastana waa faatixada in lagu akhriyo waa waajib sawaaءun asalaatu siriya waaljahriyatu salaaddii kor loo qaadayey faatixada iyo midii la qarsanayo waa isla mid wa sawaaءun alimaam waalma'muum waalmunfarid qofkii imaamka ahaa ma'muumkii qofkii gooni u tukanayey kulli qof walba waa laga rabaa faatixada likhabari صaxiixayn xadiiskii bukhaari iyo muslim laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qofkii faatixada kitaabka aan aqrinin salaadi uma sugnaanin uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam oo salaad ka ansaxaysaahi ma jirtaa loola jeeda qaala albagawiy wuxuu yihi fi lmasaabiix wacan abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaal man sallaa salaata lam yaqra' fiiha biumi اlqur'an qofkii salaad tukadoo faatixada aan ku akrin fa hiya khidaac ثalaaثan ay hayru tamaam waa salaadaan dhammaystirnayn yani kama ansaxayso faqiila liabi hurayra waxaa lagu yidhi inaa nakunu waraaءa alimaam imaamka gadaashiisa markaan ku tukanayno ma'muum aan nahay ka warramana laka rabaa haddaan ma'muum nahay faatixadii faqaala abu hurayra wuxuu yidhi iqra' biha fii nafsik naftaada u akhriso faatixada xataa haddaad ma'muum tahay waa lagaa rabaa mar walbaba فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إلهي وحوري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل صلاة وحان قيبية يعني الدعاء اللولجة دعاء فاتحة وحان قيبية يثناها أمانة فاتحة إلا فاتحة مقعدة وحاكمة الصلاة فاتحة مقعدة فاتحة والليلة مقعدة الصلاة والليلة سورة الفاتحة مركا قسمت الصلاة وحان اللولجة وفاتحة faatixadii waxaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayn aniga iyo addoonkayga labaan u kala qaybsanno u yidhi ilaahay faatixadii walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu weydiistana waa leeyahay faidaa qaala alcabdu addoonku markuu yidhaha alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa ii mahdiyey waidaa qaala hadduu yidhaha addoonku alraxmaani الraxiim qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay ahnaa calaya cabdii addoonkaygu waa ii ammaanay وإذا قال هدو إله أضونكم مالك يوم الدين قال إله حليا مجدني عبدي
أدونك وإشرفي وإذا قال هدو أدونك إياك نعبد وإياك نستعين قال وحولي يا إلهي هذا كان بيني وبين عبدي أنا أدونك عبادة نقد حيسا ولعبدي أدونك وحو إسكالي ما سأل وحو ويديستو وإذا قال أدونك مركو يرى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركو يرى قال إلهي وحولي هذا لعبدي بعدم وحا إسكالي أدونك ولعبدي ما سأل أدونك وحولي وحو ويديستي أخرجه الشيخان حديث كاو حسوس صاري بخاري هي مسلم ثم إن عجز المصلي عنها فاتحة هدوك عاجزه لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن قرآن كقيبه سكاله هدو حفظ سنيهي دور آيضاد وحفظ سنيهي فاتحة وصن حفظ سنين دور آيضاد آخر سنة فاتحة بدل كيدي ولو مفرقا على المعتمد آيضا حتى يسم بإسكو حقينه دور آيضاد وفاتحة اللمدة أي بدل كيدي آخر سنة هدوسا فاتحة حفظ السنين ثم إن عجز عن ذلك هدو حتى هل آيضنا وصن حفظ السنين وقرآن ككمدة لزمه حال لازم قراءة قدرها من ذكر أو دعاء ذكر يدعاها إسكا آخرسته فاتحة بدل كيدي ويجب واجب نقول يكونه 7 أنواع لكن ذكر جاس وإنه نقول تضبط نوع ما دام فاتحة تضبط آيات أي ككوبنيد مثالها في ذكر مثال كيدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه 5 أنواع ثانوا شنوع وما شاء الله كان نها قدر والنوع كله وما لم يشاء الله لم يكن وما لم يشاء الله لم يكن فمحو قري وما لم يشاء الله يقري واللحن وما لم يشاء الله يلا يرحم الله صحه وما لم يشاء الله لم يكن والنوع كله فالجملة 7 أنواع تضبط نوع آخر سنة ذكرها ومركو قرآن إيه فاتحة وحبه وصن أقونين عسك يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما لم يشاء الله لم يكن تضبط نوع ذكرها كمدة أي مركز آخر سنة وحتى هدوسا فاتحة أقون ولا جدد مركز دتك قارسيدي أمسيهن ما هو إلا ليهي دتك قاركود مركز صلاة تكذا اللي راهو وحيلين وتكنينا لكن إلى أن كبر إنه ما تكنين فاتحة مركز وحكجرا وحلقيا وعرب كيسو ويناديه إنه تضبط معلومات 8 معلومات أي كوقادت تضبط معلومات 8 معلومات أصوات تارك الصلاة وجوجي وحوليا ولما أنا برا محنكت كذا حتى هذا فاتحة حفظ السنين أذكارتن أخرسه أذكارتن حتى هذا عليس كقول نغته واحد استاجي قدر كيف فاتحة تضبط آيات فاتحة أنت تاجنان جرتوا كله آيات إسكت تاجنان مركز الأفعال حتى إسكت السمين مر والباب الصلاة أنت عقل وجوجه مال أي كاجر عيسو شريعة الإسلام كم جرت الخامس ركن الشناد أركان كم إذا الصلاة الركوع qofku inuu rukuuco waa rugni rukuuca hadduu ka tago salaadii ma ansaxayso wa aqalluhu lilqaa'im qofka taagan ugu yaraanta rukuuca an yanxaniya waa inuu foorarsado qadra wusuuli raaxatay muctadil alkhilqati rukbatayhi qof abuuristiisu ay siman tahay abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay inta ay ka gaarayaan labadiisa calacalood jilbaha yaqiin ay uga gaarayaan ilaa qadarkaas waa inaad dhabarka hoos yacni aad u soo foorariso ilaa markaas calacalahaagu ay ka gaarayaan labadaada jilbood rukuucaas marka qofku wuxuu ku akhrisan mar walbaba tasbiixu ku akhrisana waxaa sunnaa inuu yidhaah subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdih taasuu ku akhrisan ugu yaraan hal mar qofka imaamka ah ee dadda salaada ka bixinayana waxaa la rabaa 3 inuusan ka badin si dadkii salaadii aan loogu dheeraynin oo salaadii dhirirkeeda aysan u dhibsanin 3 goor uu leeyahay hadduu imaam yahay subxaana rabbiyal cadiim wa bixamdihi subxaana rabbiyal cadiim wa bixamdihi qofku hadduu laakiin keligii iska tukanayo ama jamaaco raalli ku ah salaada in lagu dheereeyo uu imaam u yahay ducooyin fara badan iyo tasbiix fara badan iyo waa isaga akhrisan karaa rukuuci ويزيد المنفرد قفك كلجيس دكنا يوحو زيادين كرا أو كلجا مركا تكنيسي وإمام قوم محصورين راضين بالتدويل يضد جعل صلاة إن لقول له يهدد إمام أتهاي اللهم لك ركعت إله أديكم كور ركوعي وبك آمنت أديكم وان كرمي ولك أسلمت أديكم كوه جانسمي خشع لك سمعي وبصري أرجيجي يمقل كيجي بعدي كوه خشوعين ومخي وعظمي روحي يلفتي بعدي كوه خشوعين وعصبي وشعري
tintayda iyo seedahayguba adigay kuu khushuuceen wabashari korkaygoo dhan adiguu kuu khushuucay wamastaqallat bihi qadami waxa lugtaydu ay qaaddo oo dhan oo jirka ah adigay kuu khushuuceen lilaahi rabbi alcaalamiin alla rabbi alcaalamiin ay u khushuuceen faalityaanu bihalaaثi fi الtasbiix maca hada الducaa أwlaa min الziyaadati calayha maca cadamihi in 3 gooroo tasbiixa aad la timaadid ducadana aad ku darto ayaa ka fiican inaad tasbiixda uun iskaga celceliso subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi inaad iskaga celceliso waxaa ka fiican 3 gooroo subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi iyo ducadan inaad akhrisato waa markaad keligaa tukanaysid ama dad raalli ku ah salaadda in lagu dheereeyo aad markaa imaam u tahay وفي المصابيح waxaa ku sugnaa qaala أنس wuxuu yidhi kaana rasuulu الlahi wuxuu ahaa jiray salى الlaهu عليه wasalam yughiru inuu badiyo an yaquula fii rukuucihi wa sujuudih rukuuca iyo sujuudda nabigu wuxuu ku akhrisan jiray salى الlaهu عليه wasalam subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma اkfir lii ducadaasu aad u badi jiray rasuulku salى الlaهu عليه wasalam وعan caaئiشhaةa أna rasuula الlahi salى الlaهu عليه wasalam kaana yaquulu fii rukuucihi wa sujuudih nabiga rukuuca iyo sujuudda wuxuu kaluu ku akhrisan jiray oo ka mid ahaa adkaarta u akhristo subuuxun quduus rabu الmalaaئikaةi wالruux waa xadiiska muslim iyo nasaa'i iyo abu daawuud iyo imaam axmed iyo keyrkoodaa warinaya asaadisu rugniga 6aad oo arkaanta salaada ka mida adduma'niinatu ku xasilidu fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa waa in lagu xasilo rukuucii dee intaad foorarsato isla markiiba haddana madaxaagii haddaad kor u soo qaaddo salaaddii ma ku ansaxayso waa in lagu xasilo ugu yaraan qadar laga yidhaaho subxaana allah intii laga yidhaaho kale ugu yaraan qadar laga yidhaaho inaad ku xasisho waa waajib dumaaniinada ee xasilkaa haddii aad ka tegtid salaadaadii ma ansaxayso lidaalika waxaa deliil u ah xadiis alrajuli اlmusii'i salaatah ninkii salaaddiisii xumeeyey xadiiskii ka sheekeynayaa deliil u ahoo nina hadda ka hor nabiga salى الlahu عalيه wasalam agtiisa ku tukaday rasuulku waa fiirinayey siduu u tukanayo qaabku u tukanayo wuxuu arkay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam ninkii inuu rukuucii iyo sujuuddii uu gawinayo uun uusan ku xasilayn hal mar markuu jilbaha saa yidhaahba horuu ka soo istaagay sujuudda markuu dhulka taabsiyaba horuu haddana ka soo qaadi wax dumaaninayo xasilooni ah oo salaaddii uu ku tukanayo inaysan jirin uu arkay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam rasuulku markaa salى الlahu عalيه wasalam ninkii rasuulkuu salaamay nabigu wuxuu ku yidhi salli fainaka lam tusalli orodoo dib u laabo soo tuko ma aadan tukan uu yidhi rasuulku salى الlahu عalيه wasalam marka salaaddii waxay la mid tahay haddaadan ku xasilin waxaa lagu leeyahay waa adoon salaaddii tukan oo kale ayay la mid tahay adoo taariku salaada ayaadna sidaas u dhimanee haddii rugniga salaada hal rugni oo ka mida oo xasiloonidu ay ka mid tahay aad ka tegtid asaadisu aلطuma'niinatu fiihi aلطuma'niinatu ku xasilidu fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa in lagu xasilo walidaalika salaadda in lagu xasilo oo lagu macaansado oo lagu khushuuco ayaa lagaa rabaa mar walbaba laakiin ma aha salaadda inaad u aragtid inaad xabsi ku jirto oo kaleo wakhtigiisa aad soo gaabinaysid qof xabsi iyo cidhiiri ku jiroo dhahaya xabsiga wakhtigiisaan gaabinoo bal si degdega aan uga fakado xabsiga sidaas oo kalena salaaddii u aragto ma aha salaadda waa raaxadaadii waa mustaqbalkaagii waxaad la hadlayso waa ilaahay waxaad hor taagan tahay waa ilaahay waa mustaqbalkaaga meeshii wakhtigii ugu fiicnaa oo noloshaada wakhtigii ugu qaalisanaa wakhtiga ilaahay aad hor taagan tahay oo wejigaagii ilaahay dartii aad ciidda u dhigayso oo dhulka aad u dhigayso waa mustaqbalkaaga noloshaada wakhtigii ugu qaalisanaayo ku soo mara walidaalika awqaadda qaaliga ah waa la xafidaa waana lagu macaansadaa qofku mar walbaba salaadda wuxuu ku khushuucaa oo uu ku xasilaa qofba inta uu jacaylka ilaahay intuu dhan yahay oo ilaahay uu jecel yahay ayuu qofka salaadda uu ku xasili karaa qofka hadduusanba ilaahay jacaylkiisa uu ku yar yahay oo cibaadadu qiimahayo agtiisaba aysan ka lahayn waxaa dhibaya intaas waajibaadka uu akhrinayo marka sidii xabsi uu ka cararayo oo kale ay salaaddii u noqona waa ka carari wax macaana ma haysto iimaan wanaagsan oo salaaddii ku daahinaya ma lahan walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii xilliga salaada la gaaro wuxuu dhihi jiray arixnaa yaa bilaalow noo raaxee salaadda waa raaxadii qofka muuminka inuu marka ku raaxaysto o ku macaansado ayaa inuu ku macaansadaa mar walbaba laga maarmaana walidaalika curwat bnu zubayr taabiciyuu ahaa oo asxaabtii nabiga soo gaaray salى الlahu عalيه wasalam jilibkaa waxaa uga dhacay xanuunkan kankaraha la yidhah xanuunkan kankaraha la yidhah jilibka uga dhacay marka waxaa la yidhi waa in lagaa gooyo ilaa jilibka wixii ka hooseeya in lagaa jaro marka lagaa jarayana waxaa la yidhi waa lagu daroogeynaa si xanuunka aadan u dareemin
markaasuu wuxuu yidhi aniga weligay caqligu igama tegine intaas aan daroogaysanahay waxaan noqonaha qof dikriga ilaahay iyo xuska ilaahayba halmaansan mana rabo qalbigayga marna in ilaahay uu halmaamo marka yaan lay daroogayne anigoo soo jeeda wuxuu yidhi oo caadi ah lugta ha layga jaro suurtagal ma aha layidhi wuxuu yidhi waxaa jira wakhti aan daroogaysanahay oo qalbigaygu meel kaleba uu jiro oo ilaahay aan ku maqanahay oo marka salaadda aan xirto allaahu akbar markaan idhaaho waa daroogo camaloo ilaahan ku maqanahay jacaylka ilaahay iyo dikriga adkaarta aan akhrisanayo salaadan ku macaansanaho meel kale wax kaleba maba dareemayo yidhi salaadaas mahan xilligaas marka ha layga gooyo yidhi markaan atixyaadka u fadhiisto ha layga jaro lugta curwat ibnu zubayr sidii lagu samey markuu atixyaadka u fadhiistay haddii xilligaasna qalabkan casriga ah wax lagu jarayo ma jirinoo minshaaraa dhakhaatiirtu ay wax ku jari jireen minshaaraa looga gooyey taxiyaadkii markuu marayo hal marna ma uusan dhihin hal marna ma dhihin markii assalaamu calaykum uu yidhi markaasuu dareemay xanuunkii markaasuu dareemay marka dadkii hore taabiciintii iyo salafu saalix saasay ahaayeenoo markay salaada galaan waaba ku tegi jireenba ma dareensana waxa lagu samaynayo laakiin innaga waxaa noo bedelay macaantaas inaanaan yacni ishalmaanno oo salaaddii aan isku halmaanno oo innagii dhammaa qalbigeenniiba ilaahay uu ku tago waxaa noo bedelay cayaar iyo lahwi inaan isku halmaanno cayaaraha waa isku halmaannaa meel aan joogno iyo wax nagu dhacayo ma dareenno markii cayaarta la daawanayo dhallinyarada qaarkood markay filimada fiirsanayaan ama banooni ay jecel yihiin ama koox ay jecel yihiin banooniga ay soo gashay fiirsanayaan qaarkood lugaha daala lugaha barara mana oga bararkaas lugaha ma dareemayaan laakiin markii la yidhaaho ilaahay ku mashquuloo salaada ku macaanso oo ilaahay isku halmaan iyo dikriga isku halmaan wuxuu leeyahay see u dhici kartaa inaan salaadda isku halmaamo aanan waxba dareemayn laakiin wuu fahmi karaa markuu banooniga fiirsanayo inuu ishalmaamo isagii dhammaa oo habeenka saacadihiisii uusan xasuusan qaarkood lugihii intuu bararay loo sheego la yidhi war lugihiina bararan soo ma arkaysaan istaagay ku fiirsanayo fadhigii xataa waa ka gaari la'yihiin istaagay ku fiirsay u macaansanayaan laakiin ma rabaan inay ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa iyo khushuuciisa ay isku dhex halmaamaan ma rabaan lidaalika marka waa in badiilka lahwiga ee cayaarta intaan isku halmaamayno waa inaan ilaahay dikrigiisa aan ku halmaanno qalbigeenna iyo qaalabkeenna o dhan oon ilaahay ku tagno maxabadiisa iyo jacaylkiisa ayaa la doonay asaabicu rugniga toddobaad alictidaalu ictidaal rugniga toddobaad waa ictidaal ictidaalka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa sinaansho weeye waa in marka samic allaahu istaagga lagu akhrisanayo alictidaalu sinaansho weeye dhabarkaaga lafihiisu waa inaad qumaati u istaagto oo dhinacna aadan u qalloocin midig iyo bidix iyo horay iyo midna aadan u qalleecinoo si qumaatiya waa inaad u istaagto waa istaaggii lagu akhrinayay samica allaahu liman xamida wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula fi rafci inuu kor noqoshada ku yidhaha markuu samica allaahu dhinaca yacni madaxiisa uu rukuuca ka soo kor noqonayo waa inuu yidhaha samica allaahu liman xamida wa fi ictidaalihi markuu sinaadana wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamdu waa sida sunnadaa sidaas wey oo fi rafci maxaa loola jeedaa rukuucii markaad ka soo socoto welina aadan qumaati u istaagin dhex markaad soo marayso ayaa samica allaahu liman xamidah intaas la rabaa inaad akhrisato oo markaad dhex soo marayso qumaati markii aad u soo istaagtana rabbanaa laka alxamdu ayaad akhrisanay waa la fahmay soo maaha markii rukuuca aad ka soo socoto madaxa markaad bilaawdo inuu madaxu kor soo aado kor soo aadka markaasaad bilaabi samica allaahu liman xamida markaa qumaati u istaagtana rabbanaa walaka alxamd saas sida sunnadaa sidaas wey rabbanaa laka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacd wazaada fi taxqiiq imaamu nawowi askale kitaabka taxqiiq sheekh nawowi ula jeedaa sheekh nawowi wuxuu ziyaadiyey xamdan kaiira mubaarakan fiih bacda rabbanaa laka alxamdu rabbanaa laka alxamdu ka bacdi waxaad leedahay xamdan kaiira mubaarakan fiih wayaziidu man mara maa lam yarid ilqunuud hadduusan qunuud doonaynin qofkii aan soo sheegnay wuxuu ziyaadina qofka la soo sheegay maxaa loola jeedaa waa qof keligii tukanaya ama dad raalli ku ah salaadda in lagu dheereeyo imaam u ah qofkaas wuxuu ziyaadinaa ahla الhanaaءi wاlmajdi axaqu maa qaala alcabdu wakulunaa laka cabdu laa maanica limaa acطayta walaa mucdiya limaa manact walaa yanfacu da ljaddi minka اljaddu intaas inaad kusii ziyaadiso isaga macaansato adkaarta akhrisato samic allahu ka bacdi
ayaa laga mar walba sunnah haddaad kaligaa tukanayso ama aad jamaaca aad imaam u tahay raalli ku ah in lagu dheereeyo salaadii wuxuu ziyaadinaa ahla athanaa'i waalmajdi ammaanta iyo sharafta ilaaha ahalka u ahow axaqu maa qaala alcabdu addoonku wax uu yidhaaho waxaa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabdun dhammaanteen adigaan addoonku u nahaye laa maanica limaa acطayta waxaad bixiso ilaahu cid diidi kartaahi ma jirto walaa mucdiya limaa manacta wixii adigu aad diiddayna cid bixin kartaahi ma jirto walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu qofka hodantinimada iyo maalka u saaxiibkana hodantinimadu agtaada waxba kama tarto saasuu akhrisanaa athaaminu rukniga sideedaad aطuma'ninatu xasilooni wey fi اlictidaal ictidaalkaas waa inuu ku xasilo ataasicu rukniga sagaalaad asujuudu sujuud wey maratayn laba goor waa in la sujuudo ay fii kulli ragca loola jeedo ragco kasta waa inuu laba goor uu sujuudo wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula fiihi sujuudka inuu ku yidhaho ku akhristo subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi faqad warada can cuqbata bni caamir saxaabiga waxaa ka soo arooray annahu qaala lamaa nasalat markay soo degtay fasabbix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay qaala wuxuu yidhi markaa nebigu salى اllahu عalayه wasalam ijcaluuhaa yeela tasbiixdaas fii rukuucikum rukuucdiina yeela walamaa naزlat markay soo degtay sabix isma rabbika alaclىa qaala wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ijcaluuhaa tasbiixdaa yeela fii sujuudikum sujuuddiina yeela wayaxsulu aslu sunnati bimara sunnada asalkeedu wuxuu kugu xasilay hal mar haddii aad akhrisato subxaana rabbiya alaclىa wabixamdi waadna alkamaal ثalaaثun waxaase ugu fiican saddex waxaa ku xiga uma khamsuna ka sii fadli badan shan goor inaad ku celceliso uma sabcun toddoba uma tiscun sagaal uma ixdaa cashar 11 ayaa ugu sii fiican inaad ku celceliso walaa yaziidu axadu calaa dalika qofna kama ziyaadi karo 11 ugu badan sawaaء almunfarid wa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina bitadwiil wاlma'muum xataa qofku hadduu keligii tukanayo 11 kama badinayo ama imaam uu yahayo dad salaadii in la dheereeyo raalli ku ah xataa hadduu imaam u yahay 11 kama badinayo wayaziidu man dukira qofka keligii tukanaya ama qofka imaamka ah oo dadka ay jecel yihiin inuu salaada ku dheereeyo wuxuu ziyaadinayaan allaahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqa wasawara washaqa samcahu wabasara tabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin wazaada fi rawda wuxuu sheekh nawowi ku daray bixawlihi wa quwatihi qabla tabaarak wayusanu waxaa la sunneeyaa iktaaru ducaa fi sujuud sujuudda markaad sujuudayso ducada inaad badiso waa sunno lixadiidi muslim xadiidkii saxiix muslim wuxuu ahaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi ay raxmatii wa cafwi addoonku markuu naxariista ilaahay cafwiga ilaahay u dhow yahay wa huwa saajid waa markuu sujuudsan yaho addoonku ilaahay ugu dhow yahay faakhiru ducaa ducada badiyuu yidhi xilligaa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ay fii sujuudikum faqaminun ay faxaqiiqun an yustajaaba lakum waxaa xaqiiqa markaa in ducadiina la aqbalayo ducada sujuudda waa la aqbalaa ducada sujuudda mar walba waa la aqbali qaala albagawi wuxuu yihi fi lmasaabiix can الshaykhayn lam ajidu xadiiskaa kama helin cinda albukhaari wa qaala abu hurayra wuxuu yihi kaana rasuulu llahi wuxuu haa jiray salى اllahu عalيه wasalam yaquulu fii sujuudihi sujuuddiisa rasuulku wuxuu ku dhihi jiray salى اllahu عalيه wasalam allahuma اkfir lii denbii kulah diqahu wajilah wa awalahu wa aakhirah wa calaaniyatahu wa sirah ducadaasuu sujuudda ku akhrisan jiray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam duco kalena marna wuu ku akhrisan jiro wa qaalad caaisha waxay tidhi faqadtu waxaan waayey rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam leylata min alfiraash habeenada ka mid ah rasuulku salى اllahu عalيه wasalam gogashii iyo firaashkii ayaan ka waayey faltamastu rasuulkii waan raadiyey fawaqacat yaddii gacantaydu waxay ku dhacday calىa badni qadamayhi labadiisa lugood calooshoodii ku dhacday wa huwa fi lmasjid asagoo masjidka ku sugan wahumaa mansuubataani wa huwa yaquul labada cagood iyagooy taagan yihiin rasuulkuna uu sujuudsan yahay oo uu leeyahay allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhadik ilaahu ridahaagaan ka magan galaa caradaada wa bimucaafaatika min cuquubatik cuquubadaada ayaan cafigaagaan magan galaaho cuquubadaada ayaan ka magan galaa wa acuudu bika adigaan ku magan galaaho minka adigaan kaa magan galaa laa uxsii hanaana calayk ammaantaada ilaahu ma koobi karo anta adigu kamaa atnayta calaa nafsik sida naftaada aad u ammaantay ayaad adigu ku sifowday rabbiyow anigu ammaantaada ma koobi karo ducadaasna waa akhrisan jiray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam marka ducooyinkaa in la xafido oo mar walbaba lagu ducayso ducooyinkii rasuulka salى اllahu عalيه wasalam ayaa wanaagsan alcaashiru rugniga tobanaad addumaaniinatu xasilooni wey fii sujuudda dhexdiisa lagu xasilo alxaadi cashara kan 11aad aljuluusu fadhigii wey bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda in la fadhiisto fadhigaas ayaa rugni ah in wax lagu akhristana waa ajir dheeraada iyo sunno
وأكمله أن يقول إنه يرى رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني دعاء سنو كو آخرستنا وأجر ديرادا إيا سنة. الثاني عشر كان لبيه تبناد الضمانينة كحسلده فيه في الجلوس فضل لبدا سجودات ودحيانا وحواجب إن لغو حسله. الثالث عشر ركن يتبين سدحات التشهد وتحياتك وتحياتك أسوأ الأخير وقدم به التحياتك وقدم به إن الآخرستو يسونا وركن أركان الصلاة كمذا. الرابع عشر كان تبين أفراد القعود فضل فيه له لأجله التحيات كدرتيس وإن لا فريست التحيات كإن فضل لغو آخره والله مرمان استاغ لغو ما آخرين كرو مركب فيه دا فأدا سوى بمعنى اللام. الرابع عشر القعود فضل فيه أي لأجل تشهد التحيات كدرتيس وإن لا فريست. الخامس عشر كان طبعا الشناد الصلاة كسلم وهي على النبي قال له صلى الله وسلم وبارك عليه نبي وإن له صلي فيه أي في القعود فضل الدحديسة وإن نبي قال له صلى الله عليه وسلم بعد التشهد التحيات بعد التحيات مركز لما يسته نبي قال له صلى الله عليه وسلم والركن كمذا أركان الصلاة وأقل الصلاة على النبي وآله نبي قال كيس له صلي وحاوغير اللهم صل على محمد وآله انت سأوغير. السادس عشر كان لحية تبنات السلام النقصي إلا السلام النقص اللي يراه وغيران السلام عليكم وغيران اللي يراه ولا مرمان وواجب إن مركا السلام عليكم ورحمة الله اللي يراه ودنا عن مديك تمركا ورا لو جيستو كبعد هدنا مركا لباد دنا عن بدخدا لو سي جيستو سي جيسشدا سي جيسيغو والسنه لكن محا واجبة السلام عليكم انت اسمر والبابا وواجب ولا مرمان لكن سي جيسي قدنا عن مدكتا السلام عليكم ورحمة الله لكن جيسشدا مركا جيسانيسو ورحمة الله مركا دهيسيد وي مركا جيسانيسو adoo qumaati qibladii wajigaagu u jeeda ayaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah markaad leedahay ayaa la jeestaa haddana soo laabashada assalaamu calaykum waraxmat ullah way jeesashada waxa lala jeesanayo waraxmatullaahi laakiin assalaamu calaykum markaad leedahay adoo qiblada wajigaagu u jeedo ayaa la rabaa inaad sidaa u salaamo noqsato dadka qaarkood waxay sameeyaan waa iska dhaqan caado laakiin salaada ka mid maaha assalaamu calaykum waraxmat ullah garkay meeshan jug ku siinayaan qorta assalaamu calaykum waraxmatullah garkaas jugta meesha lagu siinayo meel qoraysaa ma jirto waa iska dhaqanka iyo salaadana in la kala saaro cibaadada waa laga maarmaan assalaamu calaykum waraxmatullah markii yiraahaan jug meeshan ku siinayaan garkay meeshan soo marinayaan jug waa iska dhaqan meel qoraysa ma jirto marka cibaadada iyo dhaqanka in la kala saaro waa laga maarmaan waa iltifaad yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix bis meel kale wax jug lagu siinayaa ma jiraan. السابع عشر مثل 17 الترتيب ترتيبه sida arkaanta hadda loo soo kala nidaamiyay oo loo kala hormariyay waa in loo kala hormariyo nidaamkaas la sameeyo oo aan la kala mar walba yaani waxa ugu horeeyay takbiiratul ihraam iyo niyadi ayaa ugu horeeyay faatixada ku xigta faatixada marka akhrisato hadana rukuuciya ku xiga saas in loo nidaamiyo waa laga marmaan Allah subhanahu wa ta'ala